السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحابتا iyo jamhuurka meel walba aad dunida ka joogtaan aad ayaan idin salaameynaa aniga iyo janaalku caawintii tiimanka salaan kadib waa idin xiisnay jamhuurkeena oo janaal ku xiran muddo dheer ayaan ka maqnayn janaalka maasha allah waa kusoo noqonay hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay noo suurid geliyey inaan soo noqono mahad ilaahay oo celineynaa kadib jamhuurka janaal ku xiran maasha allah na soo dhaweeya ku naqashada nagu tashgiiciya yaa nagu taageera maasha allah koley waxyaabo badan ayaan la maqneen insha allah biidni allah hadday macquul noo noqoto inaan nila wadaagno insha allah macal waqt waan isla wada jirnaa waan sheegi doonaa biidni allah maanta ma u soo gelin inaan wax sameeyo ama inaan wax sheego just bas waxaan usoo galay ku naqashadeyna oo waqti dheer iskeen dambeysay yacni inaana soo dhaweysaan waa soo noqonay insha allah wax kale aan isku wayno ama aan na kala joojiyo allah naga reebo maanta oo khamiis tahay haweenka cawada oo jimca soo galayso hal mar aan ku wada salino dhammaanteena nabigeena maxamed sallallahu calayhi wasalam jimca wanaagsan oo wacan meel walba aad dunida ka joogtaan caafimaad iyo bash iyo barwaaqa ayaan idin rajayneynaa inta janaal ku xiran adduunka meel walba aad ka joogtaan bash iyo barwaaqa insha allah wax badan ayaamaha lasoo dhaafay last 4 weeks 5 weeks wax badan ayaa magaalada ka dhacay wax badan insha allah waan ila share gareyn doonaa waan soo gudbin doonaa step by step insha allah waxyaabo ajaacib badan waxyaabo muruga badan waxyaabo farxad badan ayaa last 4-5 weeks nala soo yacni nagu soo cusboonaaday magaaladeena magaalada kaligeeda ma ahan United States oo dhan wax cusubna ma aha laakiin aniga binisbaale oo Ohio Columbus xoogaa waxay nagu ahayd wax nagu cusub insha allah waan la wadaagi doonaa haddaan intaas ugu baxo asxaabta qaaliga ah wax yar maanta aan rabaa inaan ila share gareeyo طبعا isla arkoono waxa waaye tuun waaye maasha allah yaa si loo soo haweeyey waa tuuntii oo cuntada lagu darsanayo waaye oo la haweeyey oo aad loo haweeyey طبعا waxa aan tusinayo wax weyn ma aha tuun dhammaanteedna waa isla naqaanaa laakiin ujeedda ayaan ka leeyahay ujeeddada ayaan sheegaya insha allah ila socda anaga haddaan Soomaali aan nahay dhammaan adduunka dhan Soomaali aan isnahay yacni tuunta agteena wax weyn kama aha yacni qof walba oo يعني Soomaali ha noqoto qof walba noqoto tuun suuqa la tagaa iyadoo qobkeeda ku xiran iyadoo xabad iyadoo isku dhigdhigan ayaa la soo gataa marka yani caalamka meel laga keenay horta hadda ma arkin waa fiirina laakiin gadaal ayaan u akhri doonaa ama idinka naftirkiina ila akhriya faahfaahin dheeraad kuma qorno intaasaa ku qoran meesha laga keenay iyo dadka sameeyey
كله هدو بل إسلا فيري دونا إسلا أخري دونا دمانتينا لكن waxa aan ka wado oo maanta aan kan u soo dhigi waxay tahay يعني bini'aadinka markuu aqliga ka shaqeeyo oo maskaxdiisa isticmaalo wax walba ha noqdo wuu sameynaa ha yaraato masala yaris tuunkaana u soo qaadanay tuunkan يعني marna ma isdheheno anaga ahaan ma isdheheno inaan saan u fiiqno oo u soo bacayno saan u soo bacayno kiimika oo maalintii hal maalin la isticmaalayo يعني qofka halkan bacdo qaato halkii maalin uu isticmaalaa يعني inaan saan u fiiqno u haweeno oo bac ku xirno haddana safety ahaan leeno wadankan safetygiisa aad ayaa loogu didaalaa nadaafada iyo cuntada iyo waxa يعني everything wax walba waxa laga dhigaa sealing shay walba hadoo sealing ahaanin waa mamnuuc inaa oo suuqa ama meelaha geeso hadaa geesidna waa lagu arko waa khatar marka inaa saan oo laga dhigo oo inta oo la geliyo bacda la geliyo sealing laga dhigo bacda anaa ka furay way xirnad sealing ahayd marka la fiiqo steel waxa ku jiro marka dhag waxa lagu isku xiraayo aad jiro waa ku xiraysaa talaajadaada gashnay meel walba gashiso u halaabin marka ka fiiqdo يعني waxa la sameeyay يعني waxaan ka wadaa waxaan dhan qof bin aadana sameeyay aqli iyo maskax oo isticmaalay oo u fikiray inuu shaqo ka sameesto oo business ka dhigo meel weyn gaarsiiyo meel walba caalamka oo geen karo oo يعني maskax iyo aqli yaa sameeyay waa tuun billah عليك يعني yaa u fikirayo arintaas ka anaga ahaan صراحة يعني وشيء معقول أو يعني أني أم فكرة آت ولا دعي نخطي سلا درت أيان جعله إن أنا الوذاوة مركو خوفك بين آدمك مسك هذا إنه استعمال أخلاقيس إنه يعني مسك حديث أخلاقيس أو اسكو درسده واستعماله أدونك وحول بإنه سمين كرو أو صار كرو هذا مسك حديث قليو وسمين كرو وجدده وإنتاس qofka bini'aadinka maskaxdiisa iyo aqligiisa haduu isku darsado iyo waxa uu search gareeyo oo wax akhriyo waxaan aaminsanahay wax walba inuu sameyn karo waa tuuntaas hadda qof ayaa soo sameeyay maskaxdiisa iyo aqligiisa kan ku soo sameeyay waa kay caalamka dhan la keenaya walaalayaal insha Allah atmanna inaa fahanteen ujeedadeeda iyo macnaheeya iyo waxa aan ka wado inaad ila fahanteen marka qof walba meel uu joogo yani inuu isliido ama inuu wax ma qaban karo ama wax ma sameyn karo inuu dhaho yani aad ayaan ugu xumaanaa yani maskaxda oo qofkan ku jiro anaga waan ugu jirtaa waa haysana ilaahay bini'aadin qof wal maskaxo uu sameeyay laakiin dadka waxa aan u kala duwanahay maskaxda ma la isticmaalay إن شاء الله فيديو يا لمد wax walba saan hor u sheegay waxaan jeclahay inaa walaalaha u faa'iideeyo oo niyada iska dilin aysan dhihin wax aan qaban karno malaha wax qabadka ma aha gacanta iyo lugta horta koo waa inaa bini'aadinka maskaxda uu ka shaqeeyaa wuxuu qabanayo wuxuu sameynayo waa inuu maskaxdiisa buuxiyaa oo ka shaqeeyaa marka waxa gacanta iyo lugta iyo ilaaha kugu darsamaa wax walba markaas way ku fududaanay laakiin da maskaxda ka shaqeynaynin oo xoog iyo gacan iyo lug iyo wax raadis yani waa la daalaya waxna horumar lama gaarayo insha Allah saan hore ugu sheegay channelka waa international oo hal shay oo u xirneen inuu aan ka sheegno waa channel international waa channelka oo loo furay aan u furnay ama ciyaalkay ay jeclaadeen inay furaan channelka iyo tiimanka insha Allah dad badan inay wax aan ugu faa'iideeno oo anagana aan ka faa'iideysano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu